السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله قيمة بدن كسر وآفر إلى باتنك بشهر رمضان سنة كنا فربقل فرتن يتضبط تاريخ ذا هجرية ده وهبين نمجب عسبتي أي سوق ليس وانا سدحي طبنك بش سدحات سنة كلام كل لحية الباطن قد بدأ جوا وين برنامج كان هبين معه وحاكم ذا يضع الله بدي أسبوع أيوب سنتي تقال كيكو قادين إسرائيل يمريكن كجودها دلك إيران ay caawa mar kale Iran waxa ay duqeyn aan kala go' lahayn ay ku wada magaalooyinka waaweyn Israa'iil iyadoo sidoo kale caawa Iran ay digniin u dirtay markii ugu horeysay dalka Suuriya gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi Ahmed al-Sharaa dhinaca kale caawa waxa si la yaab leh galabta banaanka loogu arkay la taliyaha amniga hogaamiyaha Iran Ali Larjani oo la taliyaha sare ee hogaanka sare Iran ayaa waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn ay u raadinayaan Mareykanka Israa'iil in ay dilaan laakiin waxa uu ka qayb galay maanta lana arkay isaga wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha Iran iyagoo socda banaanka magaalada Tel Aviv si weyn dadweynuhu ay ugu hareeraysan yihiin taas oo ahayd fariin cad oo ay u dirayeen Mareykanka macluumaad arrinta ku saabsan iyo muuqaaladii ugu dambeeyay ee ka imanaya magaalada Tehran oo fariin yaab leh maanta dirtay ayaan idiin hayaa qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heynayna waxa kamida waxa la duqeeyay isagoo waraysi bixinaya banaanka magaalada Tehran taagan madaxa sare ee maxkamadda cadaaladda dalka Iran Chief Justice-ka dalka Iran waan idin hayaa muuqaalka ay warbixin arinta la xiriirto qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heynayna waxa kamida madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta ka warbixiyay in dawladiisa iyo dalkiisa duqeyntii loo geystay ciidamadiisa dalka Ciraaq ku sugnaa ee 6 askari Faransiiska la dhaawacay in ay tahay arrin aan loo dul qaadan karin laakiin wixii ay ka filayeen Mareykanka Israa'iil way ka waayeen Macron maanta mar kale dagaalka ka socda Iran ee lagu weeraray waji yaab leh ayuu leeyahay waan idin hayaa faahfaahin macluumaad yaab leh oo arrinta ku saabsan qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaan idinku hayaa xogayihii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken oo sheegay in maamulka Trump ay ku degdegeen dagaalka ay ku qaadeen Iran isla markaasna ay ku qaldameen qaabkay u qaabileen ay tahay qaab aad u foolxun oo qaldan waan idin hayaa iyadoo maqal iyo muuqaala ma jiraan wax ka fadli badan in lagaaga cumreeyo waalidkaaga baliyo shirkadda Najmuddin Hajj and Umrah waxay ku diyaarisay adeeg lagaaga cumreenayo waalidkaaga sida hooyo aabe iyo ehelkaaga shirkadda Najmuddin Hajj and Umrah adeeg la isku halayn karo hagayaal khibrad u leh oo ku sugan xarameynka Makkah kuwaas oo ka caawin doona ahkaamta gudashada umrada adigoo ku heli doona qiimo macquul ah waxa lagu soo duubaya muuqaal dhameystiran oo cadeynaya qaabka looga cumreeyo waalidkaaga hawdeema la'aan adigoo ka jooga meel walba dunida lagaaga soo cumreynaya waalidkaaga ajirka ugu weyn waa marka waalidkaaga ka cumrayso iyagoo dhintay adoo nool wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada hortaada ka muuqda soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkan waa Kow Somali Media maanta Iran waxa ay xusaysay maalinta ay ugu yeereen maalinta Quds oo markaa la aasaasay ama markii ugu horeysay uu ku dhawaaqay hogaamiyihii Iran xilligaasi sanadkii 1997kii haddaba maantay kumanaan kun oo reer Iran ayaa isku soo baxay magaalooyinka waaweyn sidaan barnaamijyadii hore ku sheegnay dadkii halka lagu arkay mar kale waxa kamid ah marka laga soo tago wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian dadkaas oo dhan marka laga soo tago Ali Larjani ayaa maanta la arkay oo waliba fariin cajiib u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Ali Larjani waa mid kamid ah dadka ugu aqoonta badan dadka reer Iran waxa la sheegay waa nin aad u yaqaan falsafada reer galbeedka wuxuu sidoo kale aad u yaqaanaa arrimaha sirdoonka waa la taliyaha amniga hogaamiyihii la dilay dalka Iran ee la oran jiray Ali Khamenei waxa hadda bedelay wiilkiisa Mujtamac Khamenei Ali Larjani ninkan waa nin aad looga jecel yahay gudaha Iran Mareykanka Israa'iilna waa dadka ay ku faani lahaayeen haddii ay beegsan lahaayeen waxaase cajiib noqotay ninkii ay lahaayeen uu gabanaya ay dhul hoostiisa ku jiraa iyo maanta Tehran buu dhex ordayay iyadoo gantaaladu wali ay dhacayaan duqeyntu ay ku socoto Tehran dagaalkina lagu gudo jiro markaasuu fariin diray wuxuu leeyahay Mareykanka iyo Israa'iil way qaldameen waliba Donald Trump buu la hadlayaa wuxuu leeyahay waad qaldantay Iran dad si kala u taqaanay Iran sax ma garaneyn Iran waa ku fududaatay
waxaadna ka shallayn doontaa degdega aad ku soo degdegtay iiraan waxayna kuu noqon doontaa mid dunidoo dhan aad uga leexato waxaad ila daawataa la taliyaha amniga iiraan cali larjani waxaan shaki ku jirin caalamka laisku waafaqsan yahay maraykanka israa'iil dagaalkan inay ku fududaadeen xisaabti kaga qaldantay weji gabax uu ka raacay bal ila dhageyso cali larjani oo fariin u diray Donald Trump ترام مشکلش اینه که عقلش نمیرسه ملت ایران ملت رشیده ملت قویه ملت با اراده هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه رژیم صهیونیستی دوباره حمله کرده تو مسیر دوباره ترسیده این حمله هایی که میکنه از ترسه از استیصاله کسی که قوی باشه وسط تظاهرات بمباران نمیکنه معلومه کم آورده kaasi waxa uu ahaa la taliyaha dhanka amniga hogaamiyaha Iran la taliyihiisa Cali Larjani ayuu ahaa oo banaanka taagan isla markaana fariin afka Farisiga ugu diraya siyaasiyiinta Mareykanka gaar ahaan Donald Trump wuxuu leeyahay Iran dad laga raayo ma ahan dagaal kasto lala galo Iran dad laga raayo ma ahan buu leeyahay waxba dulmiso hadii la dulmiyana cidii dulmisa darbiga ku soo ogaata Mareykanka waxa dhahay galibal wadamada carabtu iska waabsan jiray saldhigyo iska sameeysan jiray meelo iska degdeg jiray dadka idinka celinayna Iran baa idinka qabanayna hadda Iran waxay leedahay warninki inuu idin badbaadiyo iska daay isaga meel walba uga daba galeena ilaa ay looga daba tagay Turkiga waxay islaayeen Israa'iil maanta dagaal ku galayaan Turkiga waxa loo ogolaaday maraakiibtiisa Hormuz inay maraan waaba qanacsan Turkiga dagaal uba socdo leeyahay sheekadii meel walba laga soo xiray Mareykanka Israa'iil waaya saaxiibada qiimiga leh qodobka xiga barnaamijka wali waxaynu ku jirnaa barnaamijii maanta dalka Iran ka dhacay oo ah mid taariikhiya waa jimcaha ugu dambeeyay bisha Ramadaan xilligaas oo mar walba Iiraaniyiintu ay xusaan maalinta Quds ay ugu yareen oo ay sheegeen inay tahay maalin loogu hilinayo dadka reer Falastiin haddaba maanta dadka isku soo baxay waxa ka mid ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Iran ama madaxa cadaaladda dalka Iran Chief Justice ninkaas oo magaciisa la yiraahdo غلام حسين محسني ayaa la yiraahdaa odaygan wuxuu ka mid ahaa dadkii isku soo baxay banaanku taagay Tehran isagana marka isaga waxyaab leh ayaa qabsaday isagoo markaas dadkii magaalada Tehran bartamaha magaalada socdo hadda la soo hawada Iran waxa ku jiro gantaalada iyo duqeynta Israa'iil iyaga dhinaca kale ciidankooda ilaalada kacaanka Iran iyagana gantaaladii bay tuurayaan markaas hal mar meel u dhaweeyda gantaalka Israa'iil Mareykanka uu ku soo dhacay gab Chief Justice-kii ama gudoomiyaha maxkamadda sare dalka Iran meeshii ay sugayeen warbaahinta inuu gambado ama uu carro hadda la socod markuu gantaalkaas dhacaya waraysi ayuu bixinayaa isagoo waraysiga bixinaya ay hal mar ay maqleen dadka waxaase aad loola yaabay kaamirada meeshiisa waa idin daari doonaa meesha laga sugayay inay kala cararaan dadka reer Iran way sii socdaan Allahu akbar bay ku sii hayaan macna way sii wataan shaqadoodii wataan gudoomiyaha maxkamadda sare marka fariin cajiib oo dhaxbarsaday wuxuu leeyahay waad arkaysaan hadda waxa dusheena ka dhacay gantaaladooda annaga waxaas kama gambana buu leeyahay mana ka baqno cadowga isuma dhul dhigno dadka reer Iran way isdifaacayaan wayna dagaalamayaan buu yiri meel bayna iska saarayaan cadowgooda macna waxay ku tusaysaa hogaamiyaha hadduu asaga carar lahaa dadkana way carar lahaayeen isagii amsaan dhinaxta ma gambanayo ma fakanayo ma ordayo isagii taagan macnaha hogaamiyaasha iyaga dadka waxay u bilaabayaan dhiiranaanta iyo geesinimada dagaalkan wuxuu ka dhigay adduunyada dagaal sida movie oo kale loo daawanayo film oo kale loo daawanaya ilaa adduunkii dadka laga joogi waayay Mareykan iyo Israa'iil oo adduunka fakfakanayay oo la celin waayay war wadan hebel hawaaran ma Venezuela aadina ma waxaan ku xijinaynaa wadan hebel war waxaan u malaynayaa xitaa kii Venezuela Nicolas Maduro haddii Iran lagu hormari lahaa Maduro lama bursan lahayn u malaynaa Maduro because isagoo la soo aadin buuba jiray farqiga u dhaxay Venezuela iyo Iran waxa waay Venezuela iyadoo loo imaanin buuba ninkaas hees qaaday waa jireynay waa niikinay iyadoo loo imaan war looma imaan waa lagu soo qabanaa waa lagu qaraaca waa lagu soo xiraa waa bisiixan way ninki ilan moogta hadaa baqdo ciidankaadii awoodaadii tabartaada dhan ma arkaysid awoodaada dhan baa laga qariyay waxaana daliil kugu ah ummad baa laga yaabaa hal nin inuu iska haysto 50 sano 40 sano hadda Libiya 40 sano Qadaafi baa xukumayay
qadaafin waxa lagu leeyahay xitaa qabiil ahaan qabiilkiisa qabaa'ilada Liibiya degan kuwa ugu tabarteero ku jira markaasoo 40 sano wuxuu rabo iska sameyn jiray Saddam Hussein saasoo kale wadamada kaligiisalayaasha dhan joogeen waxa ogaan kartaa dadkaas macnaha waxa ka maqan kalsoonidii ay wax iskaga celin lahaayeen Venezuela waxa ku dhacday kalsooni darra madaxweynaha Nicolas Maduro waxa dhacday asagoo ciidan haysta in gurigiisa jiifka loogu soo gal qolkiisa laga soo dhaxwato New York la dhaxkeen Iran waa kuwana ciidamadii Mareykanka ay bursanayaan waxay uga daba tagayaan badda waxay uga daba tageen bari cirka diyaaradoodii xalay waa kuwan isku dhacay oo diyaaradii shidaalka 6 qof hal mar laga dilay macnaha meel ay ku baxsaanay la yihiin waa kana hadda gudoomiye maxkamadda sare ee dalka Iran ayaa wuxuu leeyahay anaga ma gambanayno Maduro isagoo loo imaan yes peace no war yes peace no war suuday yes peace no war dab waa kana asagoo la laadina van dul saaray markaas magaalada lagu dhex wareejinaa New York dhaxay farqiga ma garanaysa wadnaha waa bal ila daawo ninkan دارد اما ما می‌خوایم با مردم در کنار مردم تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه در مقابل اونها بایستیم. آقا همین الان که من داشتم شما سنگر بجاتید مردم از این تابلوها نمی‌ترسند. مردم ملاحظه می‌کنند. در زیر این باران و در زیر این مکتب‌ها به هیچ وجه نخواهند kaasi waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Iran Ghulam Hussein Mohseni oo isagoo ka qayb galaya banaanbaxa dadka reer Iran ay iskugu soo baxeen maalinta Qudus waxa uu fariin yaab leh u diray Mareykan iyo cid walba oo dalkiisa ku soo duushay una sheegay in Iiraaniyiintu aysan ka gambanaynin xadgudubka iyo dulmiga dalkooda lagu soo qaadayo waya saaxiibada qiimiga loo qodobka xiga barnaamijka aynu u gudbaynaa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta waxa uu ka jawaabay weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga ciidamada dalka Faransiiska ee dalka Ciraaq kuwaas oo la sheegay in 6 kamid ah ciidamada dalka Faransiiska lagu dhaawacay weerarkii la sheegay daroonka Iran iyo gantaaladeeda inay ku qarxeen saldhiggii ciidamada dalka Faransiiska dalka Ciraaq laakiin madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu bixiyay jawaab cajiib ah waxa islaamaanta dadka la fiirinayay ee Mareykan Israa'iil ay daawanayeen ee jawaab ay ka sugayeen waxay ahaayeen Macron iyo Erdogan waxay sugayeen Erdogan in maadaama la weeraray dalkiisa adana la weeraray in uu ku dhawaaqo in Iran uu iska celinayo ama digniin uu diro laakiin Erdogan uu uga aamusadana Erdogan waliba isbuucan wuxuu dhahay dagaalkan waa dagaal loo baahan yahay in degdeg loo joojiyo haddii kale khasaaraha inta uu dhaafaya shibbuka dhaxdhaxaad buu iskaga dhigay madaxweynaha Faransiiska maanta ka daray France oo 6 ciidan laga dhaawacay saacada amal way xanaaqi jireen dagaalka hore ka gali jireen maanta uu soo hadlay wuxuu waxa ciidankeena ku dhacay ma ahan wax loo aqbali karo in la weeraro xarumaheena lama aqbali karo saldhigyadana waxaan haysanaa nidaam aan iskaga difaacno difaacayaanu galaynaa waanu isdifaacaynaa buu dhahay wuxuu kadana ku celiyay oo uu sheegay in France ay saldhigyada ilaashanayso iyadoo kaashanayso xulufadeeda waxay sidoo kale France sheegtay in uu isdejinayo oo France ay isla markiiba dagaal galeen macnaha dagaal hore kama galeen ma dhilaa wuxuu leeyahay waa isdejinayna France macnaheeda Mareykan Israa'iil waxay ka sugayeen waa dagaalku waan ku biirnay ma jirto Iran dagaalkeeda Mareykan Israa'iil kaliya iskugu soo haray meel walba way ka soo xirantay bal ila dhageysay Emmanuel Macron oo mowqifkiisa dagaalkan cadeynay isagoo 6 askari laga dhaawacay The afternoon, I will talk to my Iraqi counterpart. Our soldiers have been struck, and so, as we have done in the past, we are within a coalition of the willing and also to protect the attacks that have been taking place. This is unacceptable. We have a purely defensive position supporting our allies and it can never yahay saaxiibada qiimiga loo taasi waxay ahayd qayb kamid ah hadalkii madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo sheegay in ay dalkiisu hadda dagaalka galaynin isxakameynayaan taas oo macnaheedu ay tahay in Faransiiska ay ka fogaanayaan
in ay galaan dagaal aan qorshaysnayn oo ay u arkaan inuu yahay sharci darro. dalal badan oo caalamka Talyaaniga, Spain iyo kuwa kale ayaa dhammaan ku sheegay dagaalkan in uu yahay mid sharci darro oo international law shuruucda caalamiga ka hor imaanaya. waayo saaxiibada qiimiga leh qodobka ugu dambeeya barnaamijka xogayihii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan uu ka duwan yahay dagaalkii xilligoodii dhacay ee 12 maalmood aan ilaaday xilligii hore ee Mareykanka raalli ahaada ay weerarayeen. Antony Blinken wuxuu isku barbar dhigay dagaalkii hore ee Trump iyo kooxdiisa ay galeen dagaalka hadda iyaga Trump iyo kooxdiisa ay galeen haddana dagaalkii 12 maalin iyo midka hadda socda farqiga u dhaxeeya. wuxuu kii 12 maalmood ahaa Iran ma dareemayeen in regime change loo socdo in nidaamkooda loo socdo. waxay ahayd nidaam qaab duqeyna oo Iran la weeraray xarumaheeda nuclearka iyo goobo cayiman ayaa laga duqeeyay. laakiin dagaalkan qaabka ay u galeen Trump iyo kooxdiisa in Netanyahu waxay ahayd dagaal aad moodaba Iran oo dhan la rabo nidaamkeeda in lagu bedelo oo isbedel baaxad weyn looga sameeyo. taas waxa ay keentay in Iran si ka duwan sidii hore ay uga jawaab celisay. Antony Blinken ayaa sharxay xogayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka waa nin wax badan siyaasadda ka yaqaan. macnaheedu wuxuu leeyahay Trump iyo Netanyahu dagaalka way ku fudaadeen buu leeyahay si dadban buu leeyahay because haddaa dhahdo dadka nidaamkooda dhan baan bedelaynaa jawaabta iyo falcelinta ka imaado waa mid ka duwan buu leeyahay kii hore. macnaheedu waxa ay tahay nimankan markaan kal iyo laab bay u dagaalamayaan ilaan iyaga loo socdaa madaxweynaha la rabaa in la bedelo baarlamaankii wasiiradii dadkii oo dhan baa la rabaa in loo bedelo dowladnimadooda xoog baa la rabaa in lagu bedelo. marka waxa ka filan karto waxay tahay inay iyaguna nafta agdhigaan. taasa waxay keentay natiijadan aadka yaabka u leh ee hadda Iran ay la soo baxday. Iran gantaalo duqeyman wax aan laga filanayn ay la soo baxday oo Mareykan Israa'iil ka yaabi ilaa iyo ay ceeboobeen difaaci Mareykanka Israa'iil iyo Mareykan pirate kila dhahayay nidaamka difaaca Mareykanka Iron Dome wuu ceeboobay TAT wuu ceeboobay Iron Dome xaskal Israa'iil TAT iyo pirate no Mareykan baaskal labada wuu ceeboobeen saddexda baan ka wada wax badan ma qaban ilaa saldhigyada Mareykanka bariga dhex waa la duqeynaya. Israa'iil gantaalada Iran maarta waxay uga imaanayaan Xisbullah iyo Iran iyo meel walba uga imaanayaan maxna waqooyiga ilaa koonfurta ilaa bartamaha Israa'iil meel nabad qabta malahan. bal waxaad ila daawataa xogayihii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo arinta sharxaya. And here's the thing, the Iranians may well conclude even from a limited military action that there's an existential threat to their regime and they may respond in kind. Last time around they were fairly restrained. The lesson they may have learned is that restraint equals more aggression from their perspective. So we've got to make sure that we're communicating as clearly as possible about what we expect. That should start with the American people. But I think there is an opportunity if it's used wisely. waayahay walaalaha qiimiga lahow ee kaasi waxa uu xogayihii hore arrimaha dibadda maamulkii Joe Biden oo aad u Trump u cambaaray mar kasta Joe Biden Sleepy Joe buu dhahaa. barnaamijkeena habeenimo qaybtan caawa inta ayaynu ku soo xireynaa tan inta aynu kulmayno barnaamijka mid ka xigo nabadgelyada Ilaahay dushiina ha. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.